dadkii caanka ah baraha bulshada ayaa iminka halkan ku sugan hanad cumar ayaa la filaya in dabaan soo galo hoggaminaya beerta banaadir waa haween wax kala ah waa haween magaalada yaa cisag waxaa la filayaa in la soo galbiyo waxaa u soo horeeya cali madaxweynaha istanbul waa kii hanad cumar uu soo galaya caawuna waa la yahay intii galgalay baraha bulshada بلال قلع بلال وجدان ورجع عاوة halkan ku sugan waa wuxuu qaybiyaa soo dhaweynta mataana waa yaa soo dhaweynaa caaw ana mucallada waa taageerta aye warada waatan aye mucallada caawa tiktok leedii ugu sinay ayaa halkan ku sugan aye waa gartay isla tiktok أنا دان أركي وحبا على العاو أي ما كان كثير في عاو لأن كوي مشتى مقايضة وقتنا أي ما شاء الله تبارك الله هذه كريم كله بيسوق daawada sida idin muuqanaysa toortadii ayuu iminka ka jarayaan labada madaxweynaha TikTok iyo sidoo kaleente madaxweynaha Istanbul shacab aad u fara badan dad caan ka ah toortada waxaa hadda la siinaya mataanaha Muna iyo Moha oo ah mataana caan ka ah baraha bulshada sidoo kale rag badan iyo dumar aad u fara badan ayaa caawa halkan ka muuqanaya kuwaas oo aad u soo dhaweynaya madaxweynaha Istanbul markiisa ayaa afka loo geliyay toorta cajiib ah ayaa caawa loo sameynaya markan Muna ayaa u galin doonto oo ah gabar da'yar ah isla markaana ku soo caanbaxday aaladda TikTok shacabka sidoo kale intay dadka iyo halkan ku sugan waxay caawa u taageen marka caawa soo dhaweyntii u saraysay ayaa ka dhacaysa magaalada Muqdisho xaflad aad u weyn oo abid aan ka dhicin magaalada ayaa ka dhacday waxaa loo dhigay Hanad Cumar باش نشيلها يا ولي هاي باش نشيلها حتى دمودي
وحابن مرقي وردي عادي هنا daawadayaal haatan waxaa soo gabagabowday goyntii toortada iyadoo caawa soo dhabeentay aad u balaaran tahay qaybo kala duwanna ay tahay oo isku hoola hawshan aad ku adag igu casuumay goobtiisa kulay aniga iga dambeysay waxaan oo naqshada marka beerta banaadir iyada ka soo gal meel waxa arka Soomaalida dhan caruurta iyo wax walba buuxaan la yaab igu noqotay wali ma arag marka walaalkii uu maasiyay wiila soo xiriiray waqti uu geliyay soo ii heli lahaay oo igu balan qaaday in hawshan ay qaban doono asana mahad celinaa waxaan u mahad celinaa aniga miidan dhahay taageerayaasha laakiin walaalahay aatiin gabdhaha iyo wiilasha waa maasantiin saas ku soo hoosheen aniga wali bareer TikTok aad aan jecelahay TikTok waayan ka boodboodo jiray aad ka duqoobay maraa igu dambeysay hadda wiil yar wuxuu dhahay oo albaabka waa sheega wuxuu yahay anad wiliga gabar TikTok lama aad duubin marka xamar joogto maadaama gabdho badan joogaan ma la duubi doonta haddaan sheegaa ma wiliga gabar lama duubin mana la duubi dooni laakiin kaliya iska boodboodo madaxa aan iska uruurijiyaa marka ma YouTube waa caadi waaye laakiin TikTok waxa waaye boodboodkiisu waxa waaye madaxweynaha u dahay loo isticmaali karaa wacyigelin xataa waa u sameyn kartaa ma wacyigelin taas qasab waaye taas bilaala u dahay bilaala taas sheenka marka waxaan si qaas ah u mahad celinaa dad badan arkay oo reer TikTok oo gabdho aad u qurux badan ma sha Allah aniga aad aan u taageero waxaan ka xusi karaa Shuushu Cabdalle iyo gabdhaha kale marka aad kaga mahad celinaa marka waa maasintii sida quruxda badan qiimaha badan aad igu imaateen iyo labadan talentka oo aadan u jeclahay waa maasintii sawir waan galeena laakiin ayaga raba ko YouTube ina u duubo balana u qaaday balantina u fiican raba markii idin ma maasintiin qara dirjana asxaabta laha laakiin waqtigu soo bixiyay walaalkeen Xarad Umar Muhammad Cali maamulka beerta Banaadir oo runtii si gaar ah u casuumay ashraaf quruxda badan u sameeyay runtii waana goobta keliya magaalada Muqdisho dadka famous-ka ah ay isugu yimaadaan waana goob istiraatiiji ah runtii lajano aniga iga magac sareeyay miisaan weyn ayaa halkan fadhiya ujeedka u istaagay wax kale ma aha duubistii iyo videogii horaa usoo dhamaystiray waxaan rabaa oo keliis barasho أنا أسكت لا غاية وغورين مدعي وحسن مصطفى إسحاق حسن طولكم عندنا هاي وحا استعمال أبراهيم بوشيلة تيك توك يوتيوب وحا سناب شات أوتوني شبه على عيسى ميسر ما ستين أبدا ما ستين أمانتي المدن يا إبراهيم دمانتي وحافظ حد الله أنا ما تسوي أنا هلك ثلاثة هل بتسحب على يري بوق على يري سأسمع الله عادة سعيد وين دمانتي ما ستين فرحنا هاي عاوة إن أنا هلك تسوي معنا imaanta kalena wuxuu ku qotamaa walaalkeen Hanad oo maanta magaalada ku soo dhaweeyay iyo suuqay ma dhamaantoodba waxay u imaanayaan codkaygu saas uma naaqusay laakiin mikrofoonka gogoyaalno xagga ku fadhiya marka maanta waxaan ilaahay soo dhawaada codkaygu inuu kala bidhaan la walaal حاجة من السودان
حاجة اللي فبيعني سامنا ويا سامنا مقربوك وقبضنا محاكمة marka dhamaanta soo dhawaada hana magaalada ku soo dhawow caasimada dadka ku soo dhawow gabdhaha quruxda badan iyo wiilasha wada quruxda badan oo foodale adiga inay ku soo dhawaayeen meesha u yimideen gabdhaha quruxdaas jabaalka iyo sawirada meel walba ku sitaan madaxaaga ayuu imaadeen saaluuja waad shidanta ku soco marka dhamaanta soo dhawaada hana soo dhawow adigana dadka sharafta iyo qiimaha iyo qaayaha halka yimideen iyagana waxaan leenahay aad baad mahadsantihiin waqtigiina qiimaha leh sharafta leh aad u horteen walaalkiin oo magaalada ku soo dhaweysaan waxayna siinaysaa maaragtay mudnaan gooniya iyana mar walba ku faraxno dad badan oo magaalada imaan lahaana hadda kadib waxay ku soo jireen inay magaalada yimaadaan si loo soo dhaweeyo marka tan waxay ka tarbiinaysaa soo dhaweynta quruxda badan ina cadowga barintooda imaan doonto magaalada lagu soo dhaweyn doono xaniisada hadda ugu salaamayaa gabadha ugu shidan maalintii maxaa goole habeenkii arooska jooga maxaa goole ilaa 6 saac ayaa la xeyrana ma هذا كم سنة على هذا النواد شوكا هذا هني بعد تاجا أنا قلنت قبل أقول له